أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلابنا يا آيات بقولات أو سورة آل عمران كمده. waxaanu soo gaarnay casharkeenni 9 annaga oo ku dhex jirna suuraddii 3aad oo qur-aanka ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenni aayadii u dambeeyey nimankii ahlu kitaabka ahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la soo khidaabay, isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku haydaartaynaya kufriga ilaahay aayaadkiisa ay ku kufriyeen. arrintaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ogyahay oo ku daalacanayo ku najaasin doono. haddana ilaahay wuxuu soo dhahay subxaanahu wa tacaala, waxaad tiraa sayidka maxamedka ahow, qolooyinkiina ahlu kitaabka ahow, dadka maxaad uga jeedinaysiin ilaahay diinkiisa, oo qofku rumeeye maxaad uga jeedinaysaan? oo sifadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ay qariyeen ayaa ka mid ahaaday. nabigina waa ay beeniyeen, adinkoo la dalbaysiin waddada ilaahay qalooc la dalbaysiin. ilaahay haddana wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala, arrintaasna caalimiin ayaad ku tihiin inaad diinka raalli laga yahay oo toosan uu yahay diinta islaamka. hase yeeshee ilaahay ma halmaansana waxaad camal falaysaan. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, markii saas looga soo warramay qolooyinkii kufaarta ahay oo ahlu kitaabka ahay, waxaa ilaahay ku xijinayaa dadka mu'miniinta ah. ilaahay wuxuu yidhi, yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, in tudiicuu haddaad addeecdaan ood raacdiin fariiqan qayb oo min aladiina kuwii ka mida uutul kitaaba kitaabka la siiyey, yarudduukum way idin celinayaan bacda iimaanikum iimaankiina bacdigiisa kaafiriina gaala ayay idin celinayaan. wa kayfa sideebaa takfuruuna aad u kufrinaysaan wal xaal antum idinkana tudlaa la akrinaayo calaykum korkiinna aayaatullaahi ilaahay aayadiisa lagu akrinaayo, wa fiikum dhexdiinana rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa ou joogo. waman yactasim ruuxi qabsada bilaahi alle oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa qabsada, faqad xaqeeqee hudiya waa la hanuuniye kaas ilaa siraadin dariiq ayaa lagu hanuuniye, dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan. aayadda aynu meesha ka gelayno iyo aayadaha noo soo socdaba qabla intaanan gudagelin way iska leeyihiin, aayadahan sabab nusuula iska leeyihiin. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qolooyinka ahlu kitaabka ahay markuu ka soo warramay xaqa ay beeninayaan, aayaadka ilaahay ay ku kufrinayaan, ayagoo markaasina caalimiin ku ah diinta islaamka ah inay diinta xaqa ay tahay, qolada noocaasa markaasi makrigooda iyo dhagartooda ayaa ilaahay wuxuu ugaga digayaa dadka mu'miniinta ah. gaar ahaan hadda sida dhacday waqtigii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa yahuudda qaar ka mid ah waxay soo mareen labadii qabiileedoo waaweyneeday oo joogi jirtay madiino, oo nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaas ugu tegey, oo markii dambana la dhihi jiray ansaaru rasuulillaah. laba qabiilay ahaynoo waaweyn oo la dhihi jiray aws iyo khasraj la dhihi jiray. marka waqtigii nabigu tegay calayhi salaatu wasalaam dadkaas diinta islaamkaa midaysay, dadkii islay jiray oo colka ahaa jiray oo mashaakilka ahaa jiray oo caadada xunu ay ka dhexdooda aali jirta iyo colaaddu
ayaa ninkaas nin yahuudi ayaa arkay waa sii bayaani doonaahe markaasaa arrintaasaa caragelisaa la yidhi markaasuu wuxuu xasuusiyey waxyaaba dhexdooda aali jiray jaahiliyadii oo fitan ahaa jiray oo islayntay islay jireen ah markaasaa waxaa weeye markaasay ay isku dardarsoomeen oo macnaha way murmeen waxayna ku dhowaadeen inay islaayaan waxaana isku diraaya ninkaas yahuudiga ah marka hadda yahuudigan waxay culummadu yidhahdeen waxaa la dhihi jiray shamaas maya shaashaan dhihi lahay shaash ibnu qays nin la dhihi jiro ahaay maxaa yeele madiino waxaa wax ka deganaa yahuuda wax ka deganayda saan meelo badan qur-aanka u tegi doona amba siiradooda yahuud ayaa deganaa jiray oo nimankii la dhihi jiray banu nadiir iyo bani qurayda iyo qola yaroo iyagana bani qaynuqaac la yidhaahdo yahuuddaas ayaa la deganaa jirtay nimankan carabta oo maaragtay yaa degan madiino oo aws iyo khasraj ah marka waxaa carageliyey ta'alufkooda isu tegitaankooda iyo isla jirkooda isla noolaashadooda wada jirkooda iyo isjacaylka ay isu qabaan bacda an kaana maa kaana baynahum min ashaxnaa'i waalbaqlaa'i ayadoo taariikhda ay soo jireenka ay ahaa jireen dad weligood colaado ay dhex taallo cara ay dhex taallo waa hadda nimankaasu ay dhibaatadaasu dhex aali jirtay oo dagaal oo dhammaado ah oo daa'in la islayhaayo ayaa dhex aali jiray aws iyo khasraj jaahiliyadii weeye 120 sano oo xiriir ah ayaa dagaal colaada hoos socday ayuu dhex aali jiray colaad madinta ah ilaan dadka waxa weeye colaadda iyo dhibka iyo mashaakilka waxa ka bixi kara waa inay diinta islaamka ay ku midoobaan mar haddii diinta islaamka laga tago wax weligeed wax nabadgelyaa la arki maayo wax hagaaga ina la arki maayo cid kastoo hadda isku daarisane waxba ka keeni maysa arrintaas marka ninkan waxaa la socday ninkan la yidhaha shaash ibnu qays nin odayahow ahay gaaladuna mar walba makrigaas waa ka shaqaysaa makrigaas joogto waaye waqtigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo isku diri jireen iyo khadaacadii ay samay jireen dadka muslimiinta zaminkii rasuulka iyo wixii ka dambeeyey saxaabadii waqtigaas kaliya ma ahan al'aanay taagan tahay arrintaas yahuud iyo nasaaro waataan soo mari jirnay ilaahay uu dhahay walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara raalli kaa noqon maayaan uu dhahay ilaahay weligood ilaahay diintooda aad ka raacayso cid kastoo diintooda khilaafsan waxa weeye raalli ka noqon maayaan markay haddee inay raalli kaa noqdaan sugi maysid markay raalli kaa noqdaan waa maraad ayaga iyo adigu aad midowdeen ood markaasi gaalo isku tihiin markay ninkii dhallinyarada ahayoo watay ninkaas odagaahu ayuu wuxuu ku dhahay nimankaas la yidhaha bani qayla u tagow dhahay waxay ahaayeen jirib oo ka mida markaasi aws iyo khasraj waxaadna ku tidhaahdaa war ma xasuusan tihiin maalinta la yidhaha yoomu bucaas yoomu bucaas maalin taariikhla aws iyo khasraj ay baaba isku noqdoonay ahayd waxaad xasuusisaa how dhahay gabayaasha ay isku tiriyeen oo laysku caayey yoomu bucaas markaasaan horuu sheegnaba maalin weynay aheedayoo dagaal xoog lahoo laysku dhammaaday uu ka dhacay aws iyo khasraj dagaalkaasna waxaa ku adkaadaa la yidhi nimanka la yidhaha khasraj ayaa ku adkaaday wiilkii waa tegey arrintii uu sameeyey dadkii buu isku kiciyey markaasaa waxaa weeye dadkii waa isku darsan dawaatii saas laydin yeelay saasay gabayadii isku tiriyeen markaasay waxay yidhaahdeen asilaaxay dheheen hubkan isiiya nin walba hubkiisoo qaatay meeshiia waxaa ka dhasha markaasi khatar weye say jibriil nabigana calayhi salatu salaam markaas madiine markuu nabigu hijrada u tago ku cusbaay aheeday say jibriil ayaa markaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam aayadahana nabiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam ilaa hadda casharkeenaanu intuu ahaa doona haddii alla yidhaahdo oo lacallakum tahtaduuna intaan ka gaarayn nabigu calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay asagoo asxaabtiisa qaar ka mida ay la socdaan kolkaasuu wuxuu arkay nimankii madiine loogu yimiday oo aws iyo khasraj dhulkii saxaaraha ahay ayagoo safan oo dagaal isugu safanoo seefta u siiban tahay arrintaas yaa kiciyey ninkaas yahuudiga haa kiciyey marka hadda dadkan muslimiinta oo caalamka weligood is soo lay jiray haddana islayhaaya
waxa ka dambeeya waxay yahuud iyo nasaaro waay gaar ahaan yahuudda waxaas ma joojinayaan lama ogola dadka muslimiinta inay isu tagaan inay midoobaan inay isjeclaadaan sidaasaa daa'iman dib loogaga dhex shidaya waxa ka kori karana waxa weeye inay islaamka ay raacaan oo diinta islaamka u soo noqdaan oo hogaankooda hogaan muslima oo diinta islaamka u dhaqmaa inuu ahaado oo markaas diinta islaamka lagu maamulo hadda diinta islaamka hadda qofkaad u sheegtaba diinta islaamka waxaaba ka cararaho wuxuu leeyahay waxa reer galbeedka iyo aynan ogolayn waa la igu dilayaa amba dhibaato iga imaahaysa hadda waxa weeye taas caqiida xumo waaye dhibaatana wiligood looga bixi maayo oo hadda taas uu leeyahay dhibaato ku sii abuuraysa dadkaas haddii ayaga loo khuluuco oo ayaga wixii laga cabsanayo cabsidii ilaahayna meel la iska dhiga ayaga laga baqo waxaa imaahaysa markaasi in weligeed dhibaatadu ay taagnaato marka nabigu calayhi salaatu wasalaam waa soo baxay isagoo asxaabtiisa bacdi ka mida la socdaan nimankii oo dagaal ku safano arkay markaasuu nabigu waaniyey wuxuu dhahay yaa macshara almuslimiin atadcuuna bidacwa aljaahiliya waana bayna adhurikum bacda an akramakum allahu bilislaami waqad daca cankum isra aljaahiliya waalafa bayna quluubikum nabigu waa waanshay calayhi salaatu wasalaam war muslimiinoo maxaa idinku dhaw dhahay ma waxaad ku habar wacanaysaan jaahiliyadii habar wacashadeedii yaa ii tolahey yaa ii qabiilahey yaa sidaas hadda waa dhahnaa annaga ilaa hadda annagu jaahiliyatulxadiisaan ku sugannahay tii horeba mid ka sii xun oo ka dhibaato badan ayaa lagu sugan yahay yaa heer hebelahey wey markaas yaa heer hebelahey waxaan hoog iyo khasaarahayn laga heli maayo cid kasta oo arrintaas ku dhaqantane waxay ka heshay leedahay hadda dadki waana arkaan inay ku sii baaba'ayaan oo sidii unbaalalaydi ay qabiilkii iyo wixii ugu sii dhammaahayaan wamaca daalika kamana soo noqonayaan ilaan waxa weeye dadkaan waxaas ka soo noqonaynin waa dadaan ilaahay khayr u qorin dad khayr beelayaala weeye sidaa markii nabigu u waaniyey calayhi salaatu wasalaam oo waxau dhahay anoo idin dhex jooga miyaa jaahiliyadii ku habar wacanaysaa markii ilaahay islaamka idinku karaameeyey maxaa yeele islaamkaa ilaahay nagu karaameeyey karaamada ilaahay inuu na siiyey inaanu qaadanaa loo baahan yahay haddaan iskaraamo tirno ilaahay waana karaamo tirayaa waad u jeediin hadda dadka muslimiinta ah markay kitaabkoodii ka tageen ilaahay baa karaamadii ka qaaday sharaftii baa laga qaaday markaasay waxa weeye ayaguna karaamo beeleen xurmo beeleen waad u jeedaan hadda dadkii muslimiinta waa la iska laynaya meel kasta sida quraanshada iyo duqsiga iyo bulaaca iyo wax laga yaqaano male kuwaasaaba marka cid u qasdaynba markaasaa dadka muslimiinta wax xurmo ah oo hadda maanta caalamka ka leeyahay male ilaahay subxaanahu wa tacaala xurmo waa u yeelay laakiin adiga haddii dhar ina laguu geesho dharkaad iska siibtay iska tuurto qof qaawanaad noqonaysaa diinta islaamkay ka qaawan yihiin markay ayagu isqaawiyeen ayaa ilaahay qaawiyey ayagana maxaa yeele mid kasta wuxuu kuu sheegayaa waxaas reer galbeedka xaal laga yidhahdaa waxaas markaas xaal laga yidhahdaa ameerika xaytiri fulaan xowgiri kaliyaa lagu haya war waxaasu iimaan la-aan weeye iyo diin la-aan weeye wax karaamaahoo lagu gaaraayo ama sharafana ma jirto wax ka dhalanaana ma jiraan laakiin qofkaan iimaan lahayn warkaad rumaysa maayo ilaahay wuxuu idinka gooyow dha haddane cuqdadii oo jaahiliyada qalbigiina ilaahay isu dumay markaasuu aayadahana uu ku akhriyey markii aayadahan lagu akhriyey ayay waxay ogaadeen in waxaan cadowgooda wax uga yimid ay tahay fasahaad oo cadowgooda yahuudda ka dhashay inay tahay hubkii iska tuureen markaasay iswada shumiyeen jaabir ibnu cabdillaahi saxaabiga jaliilka oo la yidhaha waxau dhahay maa ra'aytu yooman ash'ama minhu walaa asara minhu dhahay kaana awaluhu shu'man wa aakhiruhu suruuran waxau dhahay maalintaas maalinka shu'mi badan weligay ma aragow dhahay maalin haddana ka farxad badanna ma aragow dhahay maalinta awalkeeda shu'miyow ahay wax la baasaysto aakhirkeedina farxadu ahay dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa usha dhexda uga qabtay waxay ku badbaadeen kitaabka ilaahayay ku badbaadeen iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa kitaabka ilaahay iyo rasuulka hadyigiisa haddii aanu qaado weyno sidaas ayaanu u hoogaynaa heer hebel iyo yaa fulaan iyo waxba laga bixi maayo waa musiibo qiyaamadu ay ku qumayso markaasaa ilaahay sidatan uu leeyahay
يا أيها الذين دولك آمنوا رميينو إن تضيعوها داد الضيعدان والراعدين فريقا قيب من الذين كوا كمذا أوتوا الكتاب كتابك اللسيي يردوكم إذن علينيان بعد إيمانكم إيمان كينك بعد كافرين قال إذن علينيان إلا ذاتك مسلمين تإني إيقود إسبانيستان وقفك مسلمك سدح أرمود كريها إيقي سكوبنا يصير رسول كان وشيء عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 سنين نب قف مسلم إيقي سمبنان إلا سدح متكود إنه يهيمويه الصيب الزاني قف هذا كور قورسة رقي الدمر روحه هذا ومركز الزنا يستي لا يحبال الدليا والنفس بالنفس نفل الدليا قف مركز قف دلي إلا قصاصاي والتارك لدينه المفارق للجماعة قف مارتيا دينتي سكتغي او ردابي او اسلام كجماعه اسلام كفارقي كاس اسغنا مرتد way murtadnimo loo dilaya laakiin wax kale oo markaas dilkoodu banaayah ma jirto marka hadii iidoon intaas la ahaynin ay timaado in la banaysto oo dadka muslimiinta ay dimaadooda ay banaystaan oo naftooda iyo cirdigooda banaystaan kufrigu saasi ku tagaysa maxay baada iimaanikum kaafirun oo ilaahi هذا إلهي هو سيدا أنت سوى مهارنا وكيف سيديبا تكفرون أدو كفرنا إيسان وسيد كفرنا إيسان استفهام أو استفهام تعجب وتوبيخ واي بل هذا آيادة أما آيادهان إيا سوى نزول كود إسوفيري ضدك مركز سوى هوايا أرنتاس إسكدرك ننكاز يهودي غار راعي إيه هبك إسوقاتي إيقون ولي استلنا لك لبحق لي إيه هذا إسدلكاس أي ربين إلي إسدلان إلهي سبحانه وتعالى وهو كعبروها يا كفر بو كعبريا معايا دماء المسلمين توح عيار ما وكيف سيديبا تكفرون هذا كفرنا يسانو الإلهي والحال أنتم إذن كانت تضلال وأخرنا عليكم كركين آيات الله إلهي آياتيس إلهي آيات كيسي ولا إذن كدول أخرايو سيدكم كفرنا يسان هذا آياتي هدين لا يسكو أخريو وآياته وحي شيئا لقطه كفر قصاصه إيمانيا والحال هدنا فيكم بحدينا رسوله إليه رسول كيس أوي هول إله وفيكم بحدينا رسوله إليه رسول كيس أوي وحد أكرميا هذا آيات إلهي وانا لك أخرنيا رسولكنا عليه الصلاة والسلام إلهي باء أفصدي هذا أفصدي النبي عليه الصلاة والسلام وحي أوهايو إلهي الله صوت دريوان وقتكي وحانا مركز نو شيغاي علماء الاسلام كان نو شيغيس معايا لو توضحي مارتيا لم نخف بعدك الضلال وفينا وارث نور هديك العلماء يولا صحيح وهو كم عبسنينه بعد يا رسول الله بعد كم بقين وفينا وارث نور هديك العلماء له ayadoo dhaxdayna ay ku suwayeen kuwa nuurka dhaxlay kuwa nuurka dhaxlay hadigaaga dhaxlay oo culimada ilaahay marka hada rasuulku kaleey salaam risaaladii waa soo gaarsiiyay waana noo sheegay haya diinti ma qarsoona mar hadii saas ay tahay qofkii hadda maanta wax asagu sameeynayo bareer ayuu u sameeyay haya caamiyaan ah iyo cid laga yeelana ma jirto وفيكم رسول يوم الله سبحانه وتعالى لهدينا إلى رسول كيسوية وما يعتصم الإلهي يتمسك قفك قبصده بالله بآيات الله إليه آيات كيسة فقد حقيقه هدية والهنوني إلى صراط طريق أيال وهنوني طريقة صو مستقيم وطوسا إلهي يقول سبحانه وتعالى قفك قطة ورصده أما قبصده إلهي سبحانه وتعالى آيات كيسة ولا هنوش وده إلهي سبحانه وتعالى طريق مستقيم أيان الوهنوش قفك لكن أقوه آياتك إلهي أنا كل ورصن أو أن قبصن طريق الضلال أي أسن الوهنونية دين أو قيمة أيان الوهنوش وطوسن لا إعوجاج فيه قلاع أو سنجر وهو دين الإسلام وأنا دين الإسلام marka hadda waxaad ogaahaysaa aayaadka ilaahay qofka qabsada qofka saahanuusan qofkan qabsanne waa baadiyeysan yahay
يا أيها الذين دولك آمنوا رميانو اتقوا الله إلهي كعبصدوا الإلهي حق تقاته عبسدي سحقنا ماذا يا أيها الذين دولك آمنوا رميانو اتقوا الله إلهي كعبصدوا الإلهي حق تقاته وصفة لمصدر محذوف تقوى حق تقاته تقوى حق تقاته إلهي كعبصد عبسي ومركاسي عبسدي سحقنا ماذا وصد إلهي سبحانه وتعالى إن الله عبصد أي حقتي وهو إن إلهي لا أضيعه فلا يعصى ويشكر فلا يكفر وإن الله له شكر له كفر ويذكر فلا ينسى وإلهي لا حصه ولا حصوص ولا هالمامن أصحاب مركاسي وحيدهن يا أود أله إن مارتي حق تغات إلهي كعبصده إلهي يا مركب وحسودك فاتقوا الله ما استطعتم إلهي كعبصده أنت أودين مركب هذا آيات دانو وهو آيات دا سي فسريسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاتي آيات دان كلا فسريسه حق تغاتي أياب استطاعة سهي علماء هذه ماشي لديه لهي والغو نسخي والغو في عينه أي آئمة واوين ومفسرين إليه سيد هذا مارته ابن كثير وكلا يا إمام الفخر الرازي وكلا حق تغاته عبسدي سحقنا ماذا ولا تموتن الإله هدمنا أو هدمنا إلا والحال أنتم بذنكم مسلمون وهو كان سميئاته إلهي سبحانه وتعالى هدمنا ليه إلا إذن كوا مسلمين مويه قفك هذا أصغر مسلم هي بنت نار أيوك ورايا والعياذ بالله تعالى ولا تموتن هدمنا الإله إلا والحال أنتم بذنكم مسلمون وهو كان موحدون يكتبتك وسرايا فلا يكون منكم موت موجود سيدا كدين على حالة دون حالة الإسلام أذنك وكسوا حالة أو حالة الإسلام كسو كيس معناه وحوي هذا مسلمين ويهين إسلام كدائما لغوضا إلى الممات انت هتكلم عليسان إسلام كهبدلنا هندورنا سوى حوي موت أوسن إذين هليلين أذنك حالة التغيير قدرة أو إسلام كبدلي هذا وحاجرة تفسير حن أياجرة وقولوا مركز وحوي شيعاء أي وحفسرين لكن ما بنانا حرام ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون أيا قار وحي كفسرين إلا وأنتم مسلمون إلا وأنتم متزوجون إذن كو مركز أن جورسن هذا منا بعد الويكاس وحصلنا ملا قرآن كان إن لا يسافسره رأي أو مجرد كيسة حرام هذا حالة الموت كأيا الله خصيصي محايلة أعماش السمار تيدا أيا حالة دا سي ظاهر تهالي لوقت موتك مدار كنا أيضاوي هذا إلهي وحود لهي واعتصموا أرنتي إلهي سبحانه وتعالى وكوه أننا أوصي خزرج وأنصار لأسوء جيدنا لكن هذا عام واي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة سواتان وكسور احجر واعتصموا قبصدوا الإلهي بحبل الله إليه حرقيس قبصد إلهي دين كيس قبصد ولا تفرقوها كلا تجنوا الإلهي إسلام كبعديس بل هذا فيه الإلهي سدقون الليه إيا ما أنت عالمك حاكتاك مسلمين حقيتها جيهن واعتصموا قبصدوا الإلهي بحبل الله إليه حرقيس إلهي دين كيس قبصد جميعا حال آتين قوضا هذا إلهي وحول أمره واجبة حرق إلهي قبصد أو إسلام كاس هذا إلهي وحول نقر يابي إنا نكوك لا تغنو أو اجتماع الدائم وي يانا فرقة إذن كل عن معايا لفرقة عذاب واي مسلمين تمركي كلا تغينا عذاب كل عاي هاي الحديثة وحول نبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب وذا جركه رحمة وي كلا تغيى تفرارقنا عذاب واي ومت كست أو تفرارق كجره وعذابيه سيدا هذا سوماليين عنو كله وعذابنها هذا إلهي وحوله سبحانه وتعالى واذكروا حسوستا هذا إلهي مركو واعتصموا بها جميعا وله وهذا ربا سوى الجرأة ضدك المسلمين دين إني وضع هايستان قول إني هايستان إلى قول هذا أساء دين كله قول هذا أساء فلانة حرام ويوحس أمرك إلهي خلافين هذا إلهي وحوله وودي يتفارض أيون وودي هذا الله وحوله واذكروا حسوستا نعمة الله إليه نعمديس عليكم كركين ويذكون نعمي
مركز وحال الله خدابة أوصي خسرت لكن هذا عام وي نعمة إلهي نوغو نعمي وميدان يرين وي محايا الإلهي المسلمين أيونا قدقي إذ وقت يقول إلهي كنتم هذين إسلام كورتيسة أعداء قوة علقة فألفت بيدنا إلهي كل ميي بين قلوبكم لابتين بين كذا وإسلام كاس إلهي كل ميي فأصبحتم بيدنا هاتين بنعمتي إلهي نعمتي السبب كذا إخوانا ولا لأتكو هاتين دين تأيي ولاية ولا لكوها وكنتم أحد هذين إلهي مركي نور على شفا حفرة بهل قبي جيدة أو من النار فأنقذكم بيدنا الله وإذن ككوريي منها حفظها سوء ككوريي وإيمان إذن ككوريي كذلك سيدا صوكرة سيدا الذين كوعدي آياتهاس يبين الله وعدين يا لكم إذن كآياتي آيات كيسة لعلكم من تهتدون أذهنون تانوا الإلهي ولو سعيدا معنى هذا السيء ويهين نعمة إلهي حصوصه الإلهي أو إلهي يكون نعمي نعمة إلهي سبحانه وتعالى ونوغ النعمي هو إسلام كاسة هذا شكر جيد لإماوين عذاب كيد وإيماناي معايا نعمة شكر جيد شكر عن إلهي شكر النعمة وزيادية سيدة إلهي ولا لئن شكرتم لأزيدنكم هذا شكر سان وإذين زيادين يا هذا ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا النعمة دي كفر سان عذاب كيد شديد وي ما أنت وحوي إلهي نعمة دي سيال كفري mar haddii nicmada ilaahay lagu kufriyo kufraa nicmo u yimiday cadaab shadiid ayaa haysta muslimiinta waa arkaysa wax kasta ilaahay waa noo sheegay subhanahu wa ta'ala cid wax ka daahan yihiin ma jirto haddii maaratay jidad kale la isaga socdo sida hadda dhacays oo meelo kale cilmiga loo doonanayo qowmiyad kale intoodan diin lahayn ra'yigoodi la qaadanayo sharcigoodi uu yahay waxa weeye dhibaato aan kala go' lahaynin oo qiyaamadu ay ku qunto ayaa lagu jirayaa إذ وقت يقول إلهي كنتم هذين وإسلام كورتيس أعداء على ليال هذين على هذين فألف بين إلهي أو كل مي بين قلوبكم لابتين بين كذا إلى إسلام كاس كل مي بركة هذا إسلام كه هذا الله هيسنن وهو علبة لنقنية هذه إسلام كلا قبصدنه والله يستجعلانه يا وضدك قلوب تود ومذوبيسه نعمة إلهي أيها الله نقول يا والله دينت يا ولاية ما أنت إسلامك ولاية ما ولاية ولا جرت ما ولايات ومارت ودويرات ومارت واستعمارك قيبية ولو بهاي عالم كمسلمين تو هل مارت يا إنه هاي يسوي ماذا هل بنديرات أصلح رصد وهل تلس أول هذا وهالكلام توضو مارت يا عالم ككل جوانه إنه النقدان مركز واليال أي نقدان لكن تلسكو هل ميلا إنه النقدان سلاس ويد إسلامكو دولة إسلامك وصاص صح يكوتها لكن هذه مثلا هذا وحيابها الدولات كاللي هذا واستعمارك وسميه قروا اللهم ميلا قاضي وحاس مارت يا ماهن لسما إسلام ماهن ولسما كلام توضو ذاتك لا يسوي معايا هذا إسلامك ما هو يستوى لسما أو شرعي هو الدولي ما يسوي فأصبحتم دون واحد هاتين والإله بنعمتي إلهي نعمديسا سبب كذا إخوانا ولا لا يد هاتين إسلام ماذا يا ولا المغنى أخرى قبيل إيه قرافات إيه غير هبل إيه جن إيه سياسة إيه وحاس ولا المغنى قماي وعلى الله ضد كان ضد ولا لاوي لغة يكمل يسيهن ملك يكمل يسيهن ويصلينا يا ضد لها يا وتسوح وي معقولة معهن dadku amay diinta islaamka ku midaysan yihiin oo diinta isla haystaan oo isku aqeedayeen ma yasoomaan waligood way isla yahay waxba tarimayso isu akaashadooda iyo luqadooda waxba tarimayso maayla carabtan hadda oo waqtigaas jirtaba sidaas isku luqay ahaayeen isku dhaqanay isku afay ahaayeen isku dhaqamayeen dhaqamada caadiga hadda asaasi isu dhameeyay hadda marka darajadoodii baanu taaganahay maanta wa kuntum waxaad aheedeen oo ilaahay islaamka hortiisa على شفا حفرة ظرف حفرة وي بهل قوغيده أما الظرف كده بهل أو من نار تكمده بهل وين أو نار كوش ذنتهي هي قوة كفر لذين أما دمع كفر لذين ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا كريه واحد إذن كحيه وهي هذا إناد مارت يا نارتاس تكون عدين إناد قال لما كل متين
قالكو انتو نوليها ايون نار موغيها فانقذكم دبيدن الله وإذن ككوريي منها النار تاسو إذن ككوريي وهنا يكوكر بالإيمان وي قفك إيمان إلهي أوصيه أيها نار تككورايا كذلك سيدا صوك لون إلهي سيدا لإذن كوسوع عدي أرنتاث لغسوا ورمي يبين الله وعضينا يا لكم إذنك آياتي صور إلهي لعلكم من تهتدون أدهنونتان وهي إلهي آياتك أنه عضينا إنا نكوه المنوي آياتك إلهي مركو عدي قف كان هنونين هذا وحوي قف آياتك اللي عدي أما فهمي ماها قف كان آياتك عدانا هنونين مايو لعلكم من تهتدون أدهنونتان والإلهي مركات 10 كين انت سوك إيجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته